waxaad maanta markhaati ka naqateen amaad maaragtay muujiseen waxaad maaragtay ku taamayseen muddo badan golaha wasiiradan ay soo gudbiyeen ayaad muujiseen aad iyo aadaan maaragtay ugu mahadsantihiin inaad dareenkiina muujisiin intaas waxaa xigto haddii nimankii cadowga ahay ay ka baxeen dhulkan oo ummaddan ilaahay uu xor ka dhigay adduunyada waxa ugu wanaagsan waa xorriyad qofka bini'aadanka inuu xor noqdo waxaa la raadiyayana xorriyaddaas ay ahaayeen markii xorriyad la helo ayuu imaan karaa horumar ayuu imaan karaa in wax la qabsado ayay imaan karaa maaragtay wax kastoo loo baahan yahay waxa maanta ay ka hadlaayeen agwaanada oo ama wadda leh ama caafimaad leh ama horumar kale leh waxaa la heli karaa markii nabad la helo marka ugu horrayso horta waxaad hesheen waxaasoo dhan wixii xambaarsanaa ayaad hesheen marka waxaad rajaysiin hadda kadib horumar hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin waxaa loo baahan yahay dadku hadday xor noqdeen oo ilaahay uu ka dulqaaday cadowgii ciidamada dawladda iyo dhammaan dawladda oon u kala helin madaxdooda qaran kuwa ugu sarreeya iyo kuwa isteedkaba waxaa la rabaa marka adinkuna maanta inaad ka shaqaysiin nabadda laakiin haddaan nabadda idinku ka shaqay weysiin oo idinku fimil isu qabsatiin oo idinku maaragtay amni darre ka shaqaysiin oo kii amni darrada wada aan wax laga qaban oo aadan dhihin guddoomiyaha waa kana ninkanaa dhibaatada ka shaqeeyo ha la qabto haddaadan dhihinina waxaan u maleeyaa waxa aad sheegaysiin iyo waxa aad hadda maaragtay muujiseen iyo waxa ficilkaas isma yeelan doonaan waxaa la rabaa marka inay degmo ayaan rabnaa aad muujiseen una soo bannaan baxdeen waxaa la rabaa inaad dulqaad badan la sameeyo inay amniga laga shaqeeyo inay dhibaatooyinka ka jiro dadka maaragtay haddii ay dhibaatadii guud oo haysata ka baxday waxaa la rabaa inay ilaahay ku shukriyaan ay ilaahay u mahad celiyaan ay yidhaaheen ilaahayow adaa dhibka naga qaadday waxaad mooddaa dadka meelahan deggan markaa fiirisid inay ay rabaan addoonnimada ay ku jireen inay rabaan imaysaa ilaahay baa addoon loo yahay laakiin bili'aadanay addoon u ahaayeen dadka deegaanadan deggan bili'aadankay addoon u ahaayeen waxaa ku tusayso 3 shay sanadka waa 12 bilood bil kasta waxaa 4 biloodoo kasta waxaa laga qaadi jiray waxbaa laga qaadi jiray 4 bilood lacagaa laga qaadi jiray 4 bilood xoolo noolaa laga qaadi jiray 4 biloodna sekaa laga qaadi jiray saas oo ma ahayn waxaa intaas sii dheereed igaarkaaga keena waa sii dheereed habartana cawada soo diro dugsiga waxa soo baratay ha sii dheereed war intaasoo dhibaataa oo ku jirteen maanta hadduu ilaahay idinka soo saaray oo ilaahay uu naga saaro ilaahay naga dulqaaday annaga iyo idinkuna waxaan ku kala maqnayn cadowgaas maanta waan isla joognaa annagoo xora annagoo cabsayn annagoo ama dadkan dhexdooda waxayn kaga soo boodaa islahayn oo aad iyo aad idinku kalsoon haddana inaad idinku istishiin oo isla hadli weysiin oo meel dhinahoo dhulahoo meeshaana la isku qabsay la isku dilaa la yidhaahdo oo ninaa isbaaro meeshaan la taagan la yidhaahdo maamulkana la yidhaahdo haye maamulow guddoomiyo adaa lagu soo diree shaqadaada qabsee waxuu qaban kariyaa guddoomiyaha keligiis wax muu qaban kariyaa war xogta gudihiina ku jirta guddoomiyaha ma ogaa kariya haddaan loo soo sheegin waxaan rabnaa marka inaad ka shaqaysiin nabadda oo aadan naqanina dad addoonnimadii raba kaliya aadan naqanina addoonnimada waxay tahay dadkan qof istaabaysana ma jirin dad isdilaaya koojidkarga maa jire kuwa isdilaaya maa jire hadday isdilaan xaa lagu samay jire ya war dadkii intaas idin baday dadkii meesha ka saaraa idinla joogee dadka aqoonta kaliya maa dhibaatadaas waxa intaas keenaya waa naqaan midida qarooftaa la adihin midida qarooftaa la adihin maysa waxaan rabnaa marka xaasidnimadaas annaga ma qabno dadkayniyaa tihiin laakiin nimankaas xaasidiinay ahaayeen xaasidnimadaasna mar kastaba inaan ku dhaqanna nagama goono dadkiin yaa nahay dawladdiin yaa nahay waxaan rabnaa idinkoo nala hadlaysiin inaad nabaddiinnana ka shaqaysiin inaad qofkii qaldan aad tiraan qofkan waa qaldan hal qadfidnoo soo wadaa maamulka degmada inaad la shaqaysiin diyaar muutiin garba inaad ka istaagtiin diyaar muutiin
dhalinyaro jid la joogsado wax tirma hadda ayaantan kama jiro meeshan waa ogna laakiin hadii xiriga la dabciyo ay ma haysaa jid la joogsadana wax tiri maayo cid qaraaba laba qaraabo qor isu qaatana waa ka sii xunta war hadal in lagu dhameysto ee akhyaarta la tusiyo war aniga akhyaaray arka ninkan wayga badsaha kaalay arka iga celiya ninkan in la yiraahdo wanaagsan maayne inaad qor la soo orodid oo walaalka wala orodid barina adigana waa ordaysaa hadda xabad ku dhifatid maanta oo dhinto adiguna meeshii joogid waa ordaysaa cabsina waa kula soo dirsaysaa walaalkaana waa ka maqanya adiguna meelaha ku yeeto arkimaysid oo cabsiya ku galayso waxaan rabnaa marka inay aqligu shaqeeyo sida degmada aad maartay ugu soo istaagteen oo degmada aad maartay hirshabeelle wasiirada waa soo baas gareyn baarlamaankan ka sugayna oo gudoomiye waa maqlayseen aad maartay ugu sugaysiin inaad dul u yeelatiin dadkana aad u soo duntiin dadkan aad maartay u qancisiin laakiin haddii qof dhinac wax ka leeyso qor in lagu ordo lama rabo marka maamulka degmada gudoomiyaha degmada khayr allah siiyay waa dadaala inaad la shaqaysiin garbana ka istaagtiin ka rabna aad iyo aad u mahadsantiin maantana sidaad noo soo dhaweyseen waa idinkaga mahad celiynaa oo dareenkiina aad u muujiseen iyo mar sida aad wax nooga sugaysiin waxna aad nooga rabteen madaxdiina aad wax u weydiisateen dareenkiina aad soo bandhigteen waa idinkaga mahad celiynaa aad iyo aad u mahadsantiin